قال هذا مركي الله سوق بتقارك والنبي يقول حول جري مسكيته كل حرة ثمامة بن عثال كمذا في صحيح البخاري رحمه الله سري النبي قدري مركا سنين كا سوق بتان مركا سنين كي نبي الله كاني ما قرنا سنين كان ما قرنا إنه وثمامة بن عثال وملك اليمامة هل قال يقول حرة بن مسكيته حرة يقول حرة ساجد كواجل markaasa halkii baa lagu dhaxidhay markaa nabigu reerihiisii uu tagay cunto uga soo qaaday hashi irmaanida nabiga noo maalay caanaheegina uga soo qaaday markaasuu nabigu halkii ugu keenay oo acab oo nin xidhxidhan markuu cuntadii siiyay oo caanaheena ka bisiyay buu ku yiri yaa Thamaama iska soo islaam markaasuu ma islaamay buu in taqtul daadamin wa in تنعم على شاكر وإن تريد المال فسل ما شئت بكيري يا محمد هذا أنا جاي دشيت بكيري نن دي جيس دول كون دعيا ميهبولي طلبة يقدم بيهبولي هذا قال لي ستنا ما أنتم حريقة يقصي دي سنة نن أبال عليان هيبولي أنا وأنا أبال قدي هذا المال يدي دون سنة شيء واحد دون توقفسينه لكن حريقة يقصي ده markaa nabigu kaleey salaatu wasalaam wuxuu ku yiri may kuma sii deynina buu ka yiri habeenkii buu halkii ku bariyay cashadii buu nabigu hadana u keenay hashi nabigu caanaha uu ka maalayay isaga looga maalayay ayuu nabigu kaleey salaatu wasalaam isaga ayuu u keenay caanihiisa markaas uu ku celiyay hadana uu iska islaam nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam ayaa nin gaala oo mushrika caanihiisi intuu keenay siinaya xaraadku ku casheynayna intuu soo qaalibu hor dhigaya markaas waliba u khidmeynaya uu adeegaya uu leeyahay soo islaam muxuu nabigu ninka la magan yahay inuu naar ka badbaado masab ka dooni maayo lacag ka dooni maayo shuurad ka dooni maayo waxa kaliya ninka nabigu ka doonaya waxa weeyaan inuu soo islaam markaas uu ku celiyay hadana yaa Muhammad haddaad dishin dhiigaygu dhulka u dhici maayo wala iga dambeeyaa buuri haddaad galladaysatina maanta oo sii deysid oo xariga iga sii deysidna nin abaal celiyaan ahay buuri anigu ma ciyaar nin kaftabaya ma yihi buuri abaalkaaga waan gudi haddaad adduunya doonaysana xoola waxa doonaysa i weydiiso madax furasho waa ku siinay xariga iga sii daa markaa nabigu kaleey salaatu wasalaam ku yiri may markaasuu deewa hagaaga anigu ma islaamay buuri hadana maalintii saddexaad sidii silay buu nabigu ninkii ugu khidmeeyay xaraadkii buu u keenay caanihii buu u keenay markaasuu yaa Thamaama iska soo islaam sidii uu isaguna ku jawaabay markaa buu nabigu saxaabadiisii ku yiri dilkiisu waxba inoo tari maayo xadiga ka sii daayay iska socday buu yiri sii daaya markii la sii daayay magaaladii Madiina ka baxay baarihii baar kamida buu galay ceel ay lahayd biyo ka soo dhaansaday uu ku soo qubaystay oo uu soo maydhay masaajidka nabigeena uu ku soo noqday isagoo oo leh ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu usalli ya rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam bargaabul ya rasuul allah diintaadan diimaha ugu necba laakiin maanta laga bilaabo diintaadan diimaha ugu jecelahay dalkaagan adduunyada ugu necba magaalada Madiina ayaan magaalooyinka ugu jecelahay wajigaagan wajiyada ugu necba maanta laga bilaabana dadka ilaahay abuuray adan kugu jecelahay buu ka yiri habadle ninkaas saddexdii maalmood ee masaajidka nabigeena kaleey salaatu wasalaam uu ku dhaxidnaa masaajidku waa meesha raxmadda ilaahay ku soo degayso waa meesha malaa'iktu ay imanayso waa meesha muslimiintu ilaahay ku xasuustaan waa meesha qofkii soo galaba loo daba dhaafo weeyaan waa meesha nabigeena kaleey salaatu wasalaam uu doortay inuu ummadiisa ku tarbiyadeeyo haddii dad diin la barayana ahdiga nabigeena masaajidka nabigeenu ku bari jiray haddii dad la islaaminayay masjidka lagu islaaminayay haddii jamaa la diray masjidku nabigu ka diraayay haddii wafuud nabigu qaabilayay masjidku ku qaabilayay laana masaajidku waa aqalki ilaahay meel cid kale loo nisbeynayo maaha fadhiga aad fadhiisatay baad ka faa'iideysan iska daa wacdiganba wacdiga wadaad way sheegayaan xataa haddaad waxba ka fahmi weydo fadhiga masjidka aad fadhidaa ilaahay kugu naxariisan laakiin dadkeena maxaa fadhiga masjidka ku adkeeyay maanta
masaajidii waa mahjuura waa laga hijrooday halkee camiran maqaaxyaha camiran maanta majaalistii qaadkaa camiran meheradihii adduunyada ayaa camiran 24 saaca adduunyada meelaheegu waa macmuur laakiin masaajidii raxmadu ku soo degaysana waa mahjuur maanta axabu lbilaadi ila allahi almasaajid dhulka ilaahay meeluhu ugu jeclaa waa masaajida meelihii ilaahay ugu jeclaaba naftu ka hordaysaa maanta oo nafteennu ay ka didaysaa meelihii ilaahay arlada ugu necbaana nafteenni maanta way ku xasilaysaa maxaa bedelay ninkaas saddexdaa maalmood masaajidkii nabigeena calayhi salaatu wasalaam khayrkii uu ka maqlaayey khayrkii uu ka arkaayey acmaashii masjidka nabigeena saxaabadu ay ka qabanayeen ayaa noloshiisa ilaahay ninkaa ku bedelay markaa buuri yaa rasuul allah cimraan u socdee maan u sii socdaa mise waan iska noqdaa markaa buu nebigu maya orodoo cimrayso laakiin wuxuu nebigu markaa uu sheegay arkaantii cumradu uu sheegay ilaa cimrada iyo xajku waa soo jireen zaman jahiligi carabtu xataa way xajin jireen wayna cimraysan jireen markaa buu nebigu u sheegay arkaantii cumrada sidaa iyo sidaa iyo sidaa markaasuu maka soo galay waxaa la yidhi waa saxaabiga ugu horeysay magaalada maka soo gala isagoo mulabiya isagoo le labayk allahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda walnicmata laka walmulku laa shariika laka waa saxaabigii ugu horeysay ee talbiyadda islaamka la yimiday tawxiidka la yimiday ee magaalada maka soo galay buu Thamaama radia allahu canhu quraysh ayaa markiiba ku soo ururtay waxay ku yidhaahdeen waxaana soo gaadhay Thamaamaw inaad diinteennii aad ka baxdeen maxaa ka jira markaasuu yidhi marka horeba diin maan haysane diintii nebi maxamed uu la yimiday baan raacay buu anigu salaamada dakhaltu diina muxamed buu ka yidhi diintii nebi maxamed uu la yimiday ee islaamka ilaahay noogu soo dhiibay ayaan anigu maanta laga bilaabo aan ka mid ahay ehelkayga buu yidhi taad sheeganaysaana horaan uga baxayba markuu cimraystay oo lagu dhici waayey limaada lana ninkani waa boqor xintada laga cuno xinta shaciirka laga cuno dalkiisu ka baxa quraysh way taqaanaa markaas waxay sidaaday ninka hay nagu taabanina haddaad nagu taabataan dhaqaaluhu naga jaray mar alle markuu cimradii dhammaystay isaga u yimid oo ku yidhi qurayshay dhegaysta maanta laga bilaabaa xinta xabban xintoo shaciira dalkayga iniga imani mayso ilaa nabi maxamed oo amar isiyo u sii daa igu yidhahda mooyaane ima ininkuu diinta islaamka soo gala mooyaane labada waxba kama dhexeeyaan buu yidhi waa ninkii ugu horeeyey baa la yidhi islaamnimada daraaddeed quraysh u saaray xisaar cunaqabatayn imika cunaqabataynta ayaa la saara yaa saartaa islaamkaa la saara maxaa lagu saarayaa laana adduunyadii baad jeclaatay adduunyadii baad weynaysay waxay gaaladu caabudayeen baad adiguna la caabuday marka way kaa adag yihiin ogow khadkoogii baad gashay markaasaa markii uu dalkiisii ku noqdayba qoomkiisi way wada islaameen markaasuu yidhi magaaladii maka shaciir ha u dirina buu yidhi xinto ha u dirina buu ka yidhi ka joojiya mar allihii markii ay maqleen reer maka ninkii uu ka joojiyey raashinkii badeecadii baad ascaarteedii baa kacday markaasay qurayshi nebiga warqad u soo qortay ku dhawarayaan ay leeyihiin yaa muxamed diintaadii ma waxay ku faraysaa inaad riximkaaga aad goysid ood gaajo ku dishid markaa buu nebigu maqlay calayhi salaatu wasalaam markaasuu yidhi Thamaama binu Athal buu nebigu warqaddu qoro wuxuu ku yidhi tolkay ilaahay baa soo hadayn doonee inooga sii daa buu ka yidhi raashinka u sii daa masaajidku saas wax u bedelaa uma tarabbad fi lmasjid nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa ragga taariikhdooda maanta caalamkao dhan laga wareeray ee la leeyahay hadday raggaasi adduunyada mar labaad iman lahaayeen mashkiladda caalamka taallaya kaa xalin lahaa bay yidhahdeen gaaladii lalahaa waa indheer garato waa khubara lagu sheegayey warkoodu wuxuu ku soo ururay inay yidhaahdaan cumar binu khadaab ninka la yidhaha hadduu caalamka maanta iman lahaa mashkiladda caalamka taalla isaga unba xallin kari lahaa markay akhristeen siiradii cumar xaggay ka soo baxeen raggaasi ayna takharajuu wallahi cahdigii nabigeena calayhi salaatu wasalaam
magaalada madiina madaaris qur-aanka laga bartana may lahayn, macaahidna may lahayn, jaamacadana may lahayn. meesha ay ummadda wax ka baratay masaajid buu ahaa. masaajid meesha nabigeenu calayhi salaatu wasalaam ummadda uu ku tarbiyeeyeyna masjidun baa ahayd. masjid imaamkii muslimiinta amiirkii muslimiinta fi cilm alxadiis abi hurayra radia allahu canhu cabdiraxmaan ibni sakhr ayaa intuu masjidkii nabigeenna uu ka baxo ayuu suuqa intuu tagu oran jiray war waad khasaarteen, war waad khasaarteen, war khayr baa ina dhaafay, maxaana dhaafay? waxay oran jireen war dhaxalkii nabiga la qaybinayaan ordo qaybtiina ka soo qaata. miiraathu muxamed yaa dhaxalkii nabiga masjidka lagu qaybsanaya. markaasay dadka qaar u malaynayeen in lacag la qaybsanayo, dana way soo yaaceen masaajidkii bay yimaadeen. waxa diyo la qaybinaya markay arki waayeen ayaa Abu Hurayra wali halkii taagan oo jawlaadkii iyo ziyaaraadkii sameynaya ayay ku yiraahdeen yaa Abu Hurayra masaajidkii waan tagnay wax dhaxalo la qaybinaya ma nu arkin. markaasuu yiri masaajidkii ma tagteen? ha waan tagnay. oo axadna masjidka kuma darkin, may masjidka dad way joogeen. dadka masjidka jooga maxay sameynayeen bali sheega buu yiri. wallahi quraan bay akhrisanayeen, qaar salaaday tukanayeen, qaar ilaahay bay baryayeen, qaar cilmigay baranayeen. markaa buu waad khasaartay buu yiri. ذاك ميراث محمد عليه الصلاة والسلام. نبي محمد عليه الصلاة والسلام dhaxalku ummadiisa uga tagay waa shaqada masjidka ku soo aragteen buu yiri. inna ma'shara al-anbiya la nuwarrathu dinaran wala dirhaman. annaku haddaan ururkii ambiyada nahay buu rasuulku yiri, diinaar iyo dirham la nagama dhaxlo buu rasuulku yiri. annaga waxa la naga dhaxlaa buu nabigu yiri, cilmiga laga dhaxlo, nabiyada cilmiga. xiriirka ilaahay iyo bini aadamka ka dhaxeeya nabiyada laga dhaxlaa. nabi lacag laga dhaxlo quraanku ma sheegin. nabiyada waxa laga dhaxlaa ilaahay macrifadiisa laga dhaxlaa, diinta ayaa laga dhaxlaa, dareenka aakhirada ayaa laga dhaxlaa. adduunyadan iyo aakhiro wixii qofku ku hagaagayay ayaa nabiyada laga dhaxlaa. markaa buu nabigu leeyahay annaku haddaan ambiyadii aan nahay diinaar iyo dirham lanagama dhaxlo, waxaa lanaga dhaxlaa buu rasuulku yidhi maaragtaanay cilm. ninka cilmiga qaatana nasiib weyn buu qaatay buu rasuulku yidhi. faman akhadahu bixadin waafir buu nabigu yidhi. ambiyada cilmiga laga dhaxlo waa maxay? cilaaqa maca allahi baa laga dhaxlaa.